guys, waan islaam meel walba aad joogtiin mida kalena aad iyo aad ayaan igaga mahadcelinayaa inta qof ay daawatay inta like saartay comment-yaashiina aadka u qurux badan wala aad baad igaga farxiseen inta subscribe siisay igu soo biirteen wala aad baa ugu mahadcelinayaa inta igu soo biiri doontana welcome ayaan leeyahay waana soo dhaweynayaa wala comment-yaashiina aadka u qurux badan aad baan uga helay mida kale waxaan rajeynayaa intaan ka badan inaan gaaro kun subscribe inaan gaarana waan rabaa intaan inay gaarsiinaysiin waan hubaa waqti dheer haba qaadatay asxaabta aad iyo aad baan jeclaa intay ku soo biirtay inta soo socota insha Allah mida kalena guys waxaan leeyahay video-yaashan soo dhigi doona channelkayga amba maalin dhaaf ayaan soo dhigi doona maanta dan video soo dhigo maalin dhaaf ayaan soo dhigi doona video-yaasheeda video cusubna maanta waan wada maxay jacaylka asraartana barti waxa sugaysin tireedana waan soo dhigi doona insha Allah aadna waan u faraxsanahay mida kalena dad Soomaali tihiina meel fog ay gaarsiin doontiin sababtoo waxaan gabadhii goorso YouTube channel furato filmaan ku soo gudbisa game-kan amba ciyaarta amba challenge amba vlog waxay damto ka soo sameyso marka inaan meel fog geynisiina waan dareemayaa waan ogahay mida kale marka maadaama ahaa gabadhiina yareeda ab Soomaaliga game-ka Avatar World iyo geeman kaleba qof dadkiiga hortayna maxay Avatar World maahine World Games soo tijaabina waan soo tijaabiyay markii horena waan ciyaari jiray video bas inaan ka soo sameeyo bahare video aan ka soo sameyn doona insha Allah marka waxyaabo yar ayaan soo gelin doona waxyaabo marka Avatar ayaan ku yar mashquulay World waan soo sameyn doona mida kalena maadaama ahay gabadhiina yareeda Soomaaliyeed inaad meel fog geyn doontiin ay taageeri doontiin dhiirigelin doontiin waan ogahay mida kalena maxay waxaan tartan ula jiraa carabta iyo maxay ajaanibta sababtoo ay maanta soo dhiga oo soo coodaya filmaana ka soo sameeya wala la dhiirigeliya iyagana meesha ugu caansan marka inay Soomaali hal yihiin oo dhiirigelinayaan inay isbada jecelnahay oo qof walba qofka kale dhiirigelinaya gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed dumarlaan aad ayaan jecelahay markaan tuso oo dhiirigeliya anna dadaalkaygana wasiilaba jibaaraya maalin dhaafna waan soo dhigi doonaa insha Allah marka guys aad baan jecelahay marka videoga jididka imkan soo dhigayna inaan warnigu daalin videoga hambalano bye gabadheedii mise waxa miyaad iga hor soo kacday quruxleedeedii yareed subax wanaagsan gabadheedii quruxda badneed way macaan aad baa maanta mise waxa baahiyaa ku haysaa maam ana qurux ma sameyn doona hayade lacagta miyaad fiirinaysaa way dabana bari lacagta qaadana xanga si fadhi lacagtani waa lacagtii ugu dambeysay haysto quraac bas ayuu noo goynaya haddana lacagtii kiradana way dhowdahay qof waa inaan maanta shaqo soo raadiya wax walba hadday dhacaan gabadheedii boodboodka jooji waxaan kuu diyaariyay wax shaqadiiba saacadda raadiyanaya bay iga dhacaysaa joog haddaba boodboodin noloshu waxay ku siisaa waxyaabo aad u qurux badan kaliya haddaad quusatid laakiin ma helaysid waa inaan gabadheeda yariista u dadaalaa wax walba aan noqdo waa inaan hooyo kartile aan noqdaa meel iska soo saara gabadheeda waa inaan ku noolaataa nolosha sida qeyrkeeda oo kale maaha inaan saaxan maahin waa inaan maanta sabarteeda oo dhan shaqaan ku raadiyaa hooyo maxay ahayd gabadheeda yariista yahay maxay shaqayaan soo raadsanay ilaahay idankiiste shaqayna hela laga yaabaa gabadheeda amaanay kugu tahay haye gabadheeda igu dahana ka walbalin gabadhaada anaa wax walba u sameynaya kaliya aad u dadaal insha Allahna waad heli doontaa igu soo reej gabadha haye maam aad baad u mahadsan tahay wallahi dabalkaaga waxaan ku qoranaa ma garanay haye yariisteedii maamaha dhibinya waan ku soo laaban doonaa insha Allah
meeshan waa cafeteria cusub waa inaan eegaa laga yaabaa inaan shaqo aan ka helo marka waxaan rajeynayaa inaan shaqo helo bal horta aan tijaabiyo abayo maxay shaqaale maniyo marabtiin maadaama meeshan cafeteria cusub uu yahay shaqaale qof nii caawiyo maad rabtiin anaa raadinooyaaye maniga heli karaa qof horta soo dhawo laakiin si shaqaale hore ayaa la soo geliyay heedkiina ugu dambeeyay waxa meeshan uu buxsamay waan ka xumahay shaqaale ma rabno hadda de saasan kuley waayahay haddaba waad mahadsan tahay abayo waxaa la gaaray duhur ilaa haddana waxba ma hayo shaqo iminka haddaan dhowr daqiiqo socdo cafeteriaga hore soo baxaya maan tijaabiyaa inaan qusun cafeteriagii ugu dambeeyay ayaa noqonaysa inaan soo eego waxaan rajeynayaa inay noqoto shaqo meeshaan ka shaqayn doono ilaaha wadaan talada ku dhiibtay waxaan rajeynayaa inaan shaqo helo xaafadda ugu yaraanaan wax la joogo gabadhayda yaraysta laginaho waa inaan tijaabiyaa inta xanga fadhin lahaa waa inaan soo eega nasiibkayga inay noqotaa laga yaabaaye hayahoyo maxay ahayd kursigaaga dalabka kusoo lagugu keeni karo waa geeska markaa saas u weecatid dalabkaaga 5 daqiiqo kadib ayaa lagu keenaya waayahay gabartayda aad baa mahadsan tahay hayaabaayo waan ku salaamay maxaan kaa caawiyaa maxaan ku qabtaa dalabkaagana maxay tahay maya dalab maahan maxay ahayd inaan shaqaale miyaa rabtin qof wax naga caawiyo nadaafada wax la qabto laga shaqeeyo qof naga caawiyo miyaad rabtiin haye balaabayo maxay ahayd niila kadulduwa ma ka shaqaysay shaqooyin fara badan miyaa soo qabatay nacmintaadan shaqadan aad cussan shaqooyin fara badan aad iyo aad u fara badan xataa waxyaabo fara badan ayaan soo tijaabiyey meelo badan aan kasoo shaqeeyey waa ka wax fiican 5 daqiiqo bas isug maamulaha ayaan usoo sheegi doonaa go-aankiisana anaa kula soo wadaagi doonaa maamulaha ayaan kusoo weydiin doonaa waayahay aad iyo aad ayaa umahadsan tahay abaa macaan waayahay haddaba 5 daqiiqo isug abayo hambali ayaan ku leeyahay waxa lagu qaatay tijaabo inaad ku joogtid oo lagu tijaabiyo shaqada maanta tijaabo ahaan ayaad u shaqaynaysaa waa wallahi dheed ayaan faraxsanahay ugu dambeyntii alxamdulilah wallahi ilaahay baa uga mahad celinaya wallahi alxamdulilah abayo aad baa umahadsan tahay wallahida maanta tijaabi ahaan maadaama u shaqaynaya walla waa aamini lahaye rafad kadib uma intaan helay aad baa umahadsan tahay abayo abaalkay gasho wallahi ma iloobayo taas waa fursad aad iyo aad u dahabaad heshay ka faa'iidayso oo shaqayso shaqadu waa weli waa blow noloshuna ma dhammaatay ilaa nafta kaa baxda maayne waa kaasay dadaaliya wallahi abayo aad baa umahadsan tahay aad baa faraxsanahay hay riskigii quruxda badnaa hadda geeskaa fadhiiso macmaankaa dalbatay anaa ku keenaya 5 daqiiqo la isug ma fahantay haya abayo aad baa umahadsan tahay waa ogahay inaad khalkhalsan tihiid waa markii kugu horeysay ee shaqada aniga xitaa saas ayay igu dhacday maxaan qabtay ayaan garan waayey wallaahi waxaan meelaan ka bilaabo ayaan garan waayey inkasta in shaqada waqtigeeda aan galay aadna ugu faraxsay meelaan ka bilaaban garan maayo okay anaa kuu sheegay meelaan ka bilaabo anile ma i weydiisatid abaa imika soco miisaska nadiifi maxay ahayd dalabyada ka qaad dadka amba yar caawi hadee wax u baahan yihiin
فضلك هالي طلب أيان ربا إنا ذي كنتيد باهي زايدة ياي حيسا يا فضلك هالي أوكي أباي حيسيسا شوكليت إيو محي شاح أو سكرت كويرتهاي إيو حيسيسا ماتشا إيو آيس كوفي قف أيا إيسو صعدة إيو محي بسكوت شوكليت إنا إيسي ميسين أيان ربا وايا هيا أبايو حوغا هير دقيقة يرسوك دلب كاغنو وكسو غاري دونا أبايو حوغا وقت يراي والله gabadha waa qof dadaal badan haddana waxa u sii dheeranay hore wax walba la qabsanayso haddana wax walba hore u fahmayso ma sha Allah maanta ugu yaraan waxaan helay saaxiib cusub oo isku meel shaqeyn aad ayaan faraxsanahay run ahaantii aad iyo aad weliba anigaba sidoo kale saas ayaan rajeynayaa كورن بالشقة عادي عاد مو فضيدي مسحوقا وكوقا أذيقي هاي يشيك بالشقة هذا والله الحمد لله يمدي بو وحبا وانكو قناحسنا والله ذا ويهي هذا مقعاقي يشيك بالمقعا إنو كبرتا يا ربابي مقعاقي يشيك اوكي أنا مقعاقي وحالي داها محين نجمة أذقنا أنا وحالي داها هذا برشو ناكسن مدى كلنا حقيقة مدي حقي ودنكي أمبا مقالة مياه جوكتا waxaan ka imday meel nolosheedu ay sahlan tahay sida looga baxo ay nolosheedu adag tahay alxamdulillah hadaan ka baxay oo waxa tahay qof waxyaabo badan soo arkay duruuf soo arkay miya waad iska dhigi kartaa saas waxyaabo badan oo aan soo arkay laakiin alxamdulillah waxaan ahay hooyo kartale oo u taaganay gabadheeda nolol wanaagsan inay ku noolaato alxamdulillah mika alxamdulillah waxa tahay walaa qof noloshaas oo kale ku nool way adag tahay inuu ka gudbo laakiin gabadh adag ayaa tahay الحمد لله وقدام بين وحير حتى لعقت ويرتها لكن أنا فرحت وين أيلتها وقينا لعق أيان قرية لسه قبل أيا وح عنسى أيانو ذكرها الحمد لله إلهي بمهدس كله الله يا أدب فرح سنة هاي مكو وباللوتن waxaan ku weydiiyay birtole shaqada maad imaanaysaa ma imaanaysid miyaa shaqada bari wallahi ma ogi laakiin hadda la ogolaado maanta tijaaban joogay hadda la ogolaado waan iman doonaa insha Allah ilaahay hadduu ii qoro waan iman doonaa abaayo waayahay insha Allah birtole ayaan is arki doonaa laakiin waxaan ku yidhi saaxiibo ma noqon karnaa ma saaxiibi karnaa nacam saaxiibo shaqada waan isla saaxiibi karnaa saaxiibina inaan saaxiibo noqona ayaa rabaa midda kalena birtole waxaan rajeynayaa inaan shaqada laga aqbalo اوكي طبعا waxaa diiday in aan adiga saaxiibo noqon midda kalena aan saaxiibo farbadan meelihiyo waxay sanaya معليش gabadheedu wallahi ma ku dhibtay way ku keeday hadana muddo dheer ayaa maqnaabahayn dib ma lahan gabadhaadu way dhageysi badan tahay wayna degan tahay dib ma lahan midda kale wajigaygu aad ayuu nuuray wali dhoola cadeynaya ugu dambeyntii ka arkay shaqa ayaan ugu dambeyntii hela xoogaha lacagna waa la soo siiyay tijaabo ahaan alxamdulillah ugu dambeyn haddaad heshay shaqo aad iyo aad ayaan kugu faraxsanahay gabadh sayda wallahi guuleysaan ku leeyahay adiga gabadhaada kuwii dhoola cadeyntooda wajiga ku soo rmay ilaahay ha niga dhigo guuleysta dhammaantiin gabadheeda aadka u qurux badan dayaxayee hooyadaa waxay ballankaaga qaaday inay nolosheena
isbedeli doonto oo meel fiican ku gaarsiin doonto wax walba haddii dhacaan waa noo shaqayn doonaa gabadhaydii quruxda badneed noloshiina saa ma ahaanis way isbedeli doontaa alxamdulilah sabar kadib hadda waxaan bilaabmay nolol cusub aad iyo aad u qurux badan waxaa rajeynayaa inay saas nolosha qurux badan iyo iftiinto albaaba faraj badan ayay furmaan alxamdulilah